kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xogta caalamka oo toddobaadkan aynu ku soo qaadan doono sooyaalkii siyaasadeed ee madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin xilligii uu ka tirsanaa hay'adda sirdoonka ee KGB-da. sidoo kale waxaynu ku soo qaadan doonaa faragelintii iyo saameyntii uu ku lahaa doorashadii dalka Mareykanka ka dhacday 2016 faragelintii iyo guuldaradii madaxweynaha dalka Ruushka lagu eedeeyay inuu ku sameeyay musharaxii xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton. barnaamijkan waxa idin la socodsiin doona anigoo Axmed Cali Ciga. bishii Disembar 1989 waxay ahayd habeen qabow darani ka jiray bariga dalka Jarmalka. waxaanu habeenkaasi bedelay jidkii ay u socotay nolosha Vladimir Putin. gidaarkii Berlin gebi ahaanba dhulka ayaa lala simay. dhammaan Jarmalka way u dhammaatay. dibadbaxayaal cadhaysan ayaa jid walba gaaf wareegaya, waxaanay meesha ka saarayaan dhammaan astaamihii xukunkii hanti wadaagga. habeenka dadkii deganaa dhismahaasi waxay ogaadeen inay bartilmaameed yihiin sida ee KGB-da. dibadbaxayaal cadhaysan oo aad u qaylinaya ayaa ku xeeran. gudaha waxaa ku jira nin dhalinyaro ah oo ka tirsan KGB-da oo lagu magacaabo Vladimir Putin. waxa uu ahaa qof aad u argagaxsan maxaa yeelay waxa uu xoogooda ku wajahnaa dhismaha. Putin waxa uu ahaa sarkaal yar oo aan khibrad lahayn, baskuna uu ka dheer yahay. gidaarkii Berlin uu burburay waxaanu doonayay jibow u dhaqaaqo sababtoo telefoon ayana waxay ahayd si uu u helo tilmaan. waxa uu gaadhay go'aan kadib ka caal waayay gurmad loo fidiyo, waxaanu si istaba joog ah u garaacay xaruntii KGB-da ee Moscow. ugu dambeyntiina sarkaal ayaa si fudud ugu yidhi Moscow way hadal daysay. Vladimir Putin xaalku ku kaliyeystay, waxaanu degdeg daba u qabadsiiyey kumanaan faylal iyo dukumentiyo ay KGB-du lahayd markii ay ku soo dhawaadeen dadka dibadbaxay. dabkuna cirka ayuu u baxay. Putin waxa uu damcay inuu dibadda u baxo oo uu wajaho mudaharaadayaasha. waxa gudaha ku jira ilaalo hubaysan, waanay idin rasaasayn doonaan. inuu ku yidhaa dadka kacdoonka waday ha isku dayina inaad halkaas soo dhaaftaan, haddii kale gacan adag ayaa la kulmi doontaan. tani waa riwaayadda uu ku sugan yahay Putin mar walba oo ah cabsida uu ka baqdo dibadbaxayaasha kacdoonka wada. cabsidaasi waxay u hoggaamisay inuu aad isku ilaaliyo. ku haynta is-ilaalintuna sidan ayay hadda u muuqataa. mid ka mid ah caasimadaha ugu mashquulsan adduunka wadooyinkeedu way madhan yihiin oo waxa ku kaliyeystay mootooyinka iyo gaadiidka Vladimir Putin. 12 milyan oo dad ah ayaa si fudud guryahooda aan uga soo bixin, maxaa yeelay waa caleema saarka Putin. Владимир Владимирович Путин. munaasibadda waxaa isku xidhkeeda baahinaya telefishinka Ruushka. hannaan kasta waa la sii qorsheeyay. tiro yar oo Raashiyaan ah ayaa raacay nidaamka iyo qorshaha.
baaxidani waa meesha badana ay jecel yihiin mucaaridku inay isugu yimaadaan oo ay ku cabbaan bunka iyo khamriga. ciidamada ka hortaga rabshaduhuna waxay xidhxidhayaan dadka fadhiya dibadda maqaaxida. dadkan la xaraynayaa ma baahin karo telefishinka ruushku. boqolkiiba 94 ilaha ay wararka ka helaan dadka ruushku waa telefishinada. kelmad kubakan ama lid ku ah madaxweyne Putin oo laga baahin karo telefishinada ruushka ma jiro. Donald Trump wins the presidency. se markii Maraykanku uu doortay madaxweynaha cusub It looked like Russia. muuqday inuu doortay isna. baarlamaanka oo loo yaqaano Duma meelaha lagu kulmo iyo baararka. balse hal nin ayaa u arkaa si ka duwan guusha Trump. qofna muu rumaysanayn inuu guulaysanayo. Mr. Putin. Я люблю Россию. Но ты ничего не докажешь. You're fired. You're fired. You're fired. arrintan waxa ka dhashay su'aalo adag oo ay ka mid yihiin Vladimir Putin wax lug ama ku lahaa soo bixidii Donald Trump faragelin ma ku sameeyay hanaankii doorashada Maraykanka. Mr. Putin muu ogolaan inuu iiga jawaabo su'aalahaygaasi balse mas'uul aad ugu dhow Vladimir Putin oo la yiraahdo Dmitry Peskov ayaa iiga jawaabay. The answer is very simple. No. jawaabtu way fududahay maya. naftaada ayaad bahdilaysaa. waxaad leedahay waddan ayaa farageliyay hanaankii doorashadiinna. Maraykanku waa waddan weyn, waddanka koobaad ee ugu quwadda weyn adduunka. wax suuragal ah maaha arrintaasi. waynu heli doonaa dhammaan xaqiiqada arrintaniye waxaynu u baahannahay inaynu dib u noqonno maalmihii ugu dambeeyay waddanka ee jacaylka Vladimir Putin. I think that down deep inay hoos ugu dhaadhacday Putin bahdilaadii weyneyd oo aanu filayn oo ah burburkii midowgii Sofiyeetiga. maxaa yeelay arrintu ma aha oo keliya midowgii Sofiyeetiga, waxay ahayd burburkii boqortooyadii Ruushka. waxa uu ku soo noqday dalkiisii isaga oo ka soo laabtay halkii sirdoonku u diray 1990 isaga oo ku soo noqday waddan uu garan waayay. midowgii Sofiyeeti waxa meesha ka saaray Mikhail Gorbachev iyo siyaasadiisii furfurnayd. wax badan ayaa si degdeg ah u dhacay. Big Mac is Big Mac. Coca-Cola, Coca-Cola. waxay u soo muuqanaysay si degdeg ah xarkaana lagu tugtigay ubicdii hanti wadaagga. meel kasta oo midowgii Sofiyeeti ah 100,000 oo dada ayaa bilaabay inay dalbadaan dimuqraadiyadda iyo madax bannaani qaran. waxay ahayd mar labaad waxa Putin uu in badan ka cabsanayay. dadku way sii kordhayeen. tina dadku waxay ahaayeen kuwo midaysan. iyo midowgii Sofiyeeti waa la laabay oo waa la dejiyey. meeshana waxaa ka babanaya oo la saaray calanka Ruushka. taariikhda 300 oo sannadood ayaa la laabay.
hay-adihii midowda soofiyeti sida KGB-dii si fudud ayaa loo qabsaday jiritaankoodii. putin aragtidiisa burburku waxay ahayd sida isaguba uu sheegay masiibadii qarnigii 20aad iyo dabeecad siyaasadeed oo dibadda ka timid ahayd waqti isbedel iyo gadgadoon ku ah nolosha Vladimir Putin. siyaasi maayir ku-xigeenka magaaladiisa Saint Petersburg may ahayn xil weyn ama shaqo weyn, balse Putin waxa uu si cad u lahaa riyo weyn. Maca Putin waxa uu ku wajahnaa Moscow maxaa yeelay dadka Ruushku waxay si weyn ugu baahnaayeen hogaamiye adag sidii madaxweyne Boris Yeltsin. dimuqraadiyadan cusubna waxay ahayd maraboob iyo dawaq. intii kale midowgii Sofiyeetina way burburtay. shuucigaha way taajireen, balse dadka caadiga ah ee Ruush waxa ay la heesayaan saboolnimo daran, waxay u dhimanayaan cunno yari xataa macaluul. ma garanayo sidaan u quudiyo carruurtayda aan la'aan, ma garanayo waxaan sameeyo. madaxweyne Boris Yeltsin waxay ahayd in la maxkamadeeyo, balse si wareera ayuu cirka u marayaa. wuu cabsan yahay oo u dhacdhacayaa. Ruushku wuxuu u baahan yahay hogaamiye cusub. waxa uu sugayaa dabaysha Vladimir Putin. waxa uu shaqo cusub u tagay Moscow oo ah halka ugu sarreysa ee aqalka Kremlinka, waxaanu ku socdaa meeqaamkiisu xawaare aad u sarreeya. waxa uu noqday siihayaha xafiiska ra'iisul wasaaraha, nin meeli u caddahay meeli ka madow. waddanka ayaa u baahan madaxweyne. waxa sii burburaya awoodda Kremlinka, waana inuu badbaadiyaa Putin. heshiis baa la sii gaadhay. bishii Disembar 31 1999 dhawaaqa la yaab kale Boris Yeltsin ayaa iska casilay madaxweynaha Ruushka, waxaanu awoodii ku wareejiyey ra'iisul wasaaraha Vladimir Putin. bilowga qarnigii 21aad Vladimir Putin waxa uu noqday madaxweynaha Ruushka. kelmadiisii ugu horeysay waxa uu ku yidhi, waxa aynu ku noolnahay adduun tartan ku jira, kamana mid nihin hogaamiyayaasheeda. Putin waxa uu bilaabay inuu bedelo waddanka. waxa uu tegay jiidda oo uu ka mid noqday ciidamadii jiidda hore ee dagaalka Chechnya. Ruushka u xaqiijiyay in waqti wanaagsan ay wajahdo, waddankuna waxa uu si degdeg ah maxabo iyo jacayl uu ugu qaaday Vladimir Putin. waa nin qurux badan sida aad aragto. balse la yaabka weyn, Maraykanku sidoo kale wuu la dhacsan yahay Vladimir Putin. madaxweyne George W. Bush waxa uu u malaynayay inuu helay saaxiib weyn. markii aan arkay waxaan ogaaday in uu yahay nin horu socod leh oo lagu aamini karo. waxaan u malaynayaa in aan wax ku ogaaday shakhsiyadiisa. xataa waxaa ka helay madaxweynaha Ruushka shirkadda filimada samaysa ee Hollywood. iskugu keenay xidigo balse ka helidaasi si dhaqso ah ayay u burburisay rajadii. waxa uu ahaa basaas KGB-da ka tirsan, sidaas ayuunbaa lagu qeexi karaa. qiimo kale iyo shakhsiyad kale muu lahayn.
waxaa xigtay markii Vladimir Putin uu la kulmay Hillary Clinton. waxaa muhiimad leh in aad xasuusatid inta ay leeg tahay necbaashiyaha Vladimir Putin u qabay Hillary Clinton. وبعدي fadeexadii lagu jabsaday doorashadii 2016 waxay ahayd mid gaamurtay oo qoto dheer. ayaal iyo marwooyin hooyaday geesiyadayda madaxweynaheena soo socda Hillary Clinton. markii ay dibadda u soo baxday fikradihii ay Hillary Clinton kaga soo horjeeday Vladimir Putin waxay ku hayd kalideed. Vladimir Putin may cajabin Hillary Clinton. dabcan Putin waxa uu doonayay in Hillary Clinton ku daraysato waa uu nacbaa Hillary Clinton. xiisadda hogaamiyayaashu sanado badan ayay cirka ku laalnayd. 2001 madaxweyne kale oo Mareykanka ah George W. Bush waxa dhisay oo doorashadiisa ka qayb qaatay Putin. waxaan u malaynayaa in aan wax ku ogaaday shakhsiyadiisa. uu socday ololihii doorashadii 2008 Hillary Clinton waxay martay jidka ka duwan. Putin aan u sheegay inuu ahaa KGB-da oo aanu lahayn qiimo kale sidaas ayuunba lagu sheegi karaa waxayna tahay waqti lumis soo saxma. dhowaan waxa ay Marwo Clinton sheegtay in aad ka tirsanayd KGB-da oo aanad qiimo kale lahayn sida uu lagu qeexi karo. Putin uu ka jawaabay hadalka Hillary Clinton dhawaaqyadeena ma ilaaliyaan qulubteena oo kaliya ee waa inaynu isticmaalnaa maskaxdeena. Putin waxa uu hadallo khatar ah uu muddo kala kulmayay Hillary Clinton. waa inaynu ka istaagnaa xayndaabkiisa sida ugu suurtagalsan. balse waxay ahayd waxa dhacay sanadkii 2011 oo hoosta ka xariiqday xariijin aan soo noqosho lahayn. waxa bilowday kacdoonkii gugii Carabta sanadkaasi 2011 nooc la mida kacdoonkaasi ayuu wajahay Putin. Mubaaragii uu bilaabay in isaga laftiisu arko indhaha xusni Mubaarak. dadku mubaaragii Masar waa la xabisay. Suuriya Bashaar al-Asad xadkihii lagu xidhxidhilaa ayuu xusilada ku sitay. Liibiya ninkii adkaa Muammar al-Qadaafi waxa uu dhameeyey oo si xun u dilay isaga oo dalbanaya noloshiisa oo kaliya dibadbaxayaal cadhaysan. Putin waxa uu ka cabsanayay inuu yeesho weji la mid ah ka Qadaafi oo dhiigu wejigiisa qariyo. maalmo yar kadibna dibadbaxayaal ayaa socod ku maray Ruushka. tobanaan kun ayaa jidadka Mooska qaaday. ugu weynaa ayaa halkaa ka dhacay tan iyo intii uu burburay Midowgii Sofiyeeti. Putin waxa uu dadku waxay siteen boodhadh. run ahaantii waa laga argagaxayay. Putin waxa uu ku noolaa si la mid ah habeenkii uu Berlin u joogay howlaha basaasida ee KGB-da bariga dalka Jarmalka 1989. yaa halkan awood ku leh. waqtiganna waa inuu dibagurasho sameeyaa isagu. muu ahayn madaxweyne xilligaasi. waxa uu ahaa ra'iisul wasaare. waxa uu qacan qaaday madaxweyne Dmitry Medvedev markii uu ku wareejinayay xilka madaxweynenimada. markii uu Putin arkay dadka dib u celinaya Hillary Clinton way sugaysay. ruushka oo Putin la'aan ah waxa ay si la mid ah dadka meel kasta jooga waxay u qalmaan xuquuqda ah inay codkooda la dhageysto oo codadkooda lagu xisaabtamo. Putin waxa uu maqlay dhawaaqyo kuwa la mid ah balmale waxa uu maqlay Saddam Hussein. dhawaaqyadaasina in ay igu soo wajahan yihiin in awoodda la igaga dhaqaajiyo. waa maxay sababta ay dadkaygu ugu qalmaan in codadkooda la dhageysto? dadka
waxaa jira sababo badan oo ka cadhaysiinaya oo ah in Putin uu markii saddexaad u tartamo madaxtinimada mar kale oo ah in Ruushka uu xukumo ilaa 2024 dadka qaar ayaa waxay odhanayaan Allah ma waxaan dhimanaynaa asagoo ninkani uu awoodiisa haysto bila kadibna doorashadii baarlamaanka Ruushka ayaa degdeg ahayd waxa uu dib ugu soo jira walaacyo badan oo ka soo baxaya habka doorashada Hillary Clinton waxa ay cod dheer ku sheegtay in doorashadu ay burburtay waxa jira xayiraad soo noqday adduunka Putin uu dib ugu soo laabtay miisaskii siyaasadda waxa uu ku eedeeyay dibadbaxayaasha dalkiisa Hillary Clinton waxa uu sheegay in qofka dadka ku kicinaya ay tahay iyadoo aanay cabasho ka jirin doorashada xayiraado sii kordhaya oo ka hor imanaya xuquuqda aasaasiga kelmadaheedu waxa ay dirayeen baaq ama fariimo Atijiyada Putin uu dib ugu celiyay kuwa kacdoonka wada In March 2012 waxa uu ka shaqeeyay doorashadiisa waxa uu dib u ceshaday ilintii kadibna dagaal ayuu galay waxaynu u dibabaxaynaa in aan qofna inagu soo rogin waxba inaga waxaan maalin aanu Vladimir Putin ilaabi doonin weligii oo ku saabsan haweeneydii ulaaga dhulka ugu tuuray markii uu dhulka jiifay sirdoonka malaynayaa in ay tahay arinta ka fikirka leh ee isaga u hogaamisay in uu farageliyo oo Ruushka u xaqiijisay in ay arintaasi farageliyaan doonka Mareykanku waxa ay ku soo gabagabeeyeen baadhid in Putin uu si shakhsi ah u amray olole uu ku faragelinayay doorashada Mareykanka waxaana qayb ka ahaa in uu meel ku yeeshay bilowgii Hillary Clinton 2011 Putin wuu diiday inuu jabsaday xogihii xisbiga dimuqraadiga ranayo waxa aad ka og tahay arintaasi mise kuwa wax jabsada ayaad og tahay way adag tahay in aad si qoto dheer uga fikirto hubi arintaas waxa uu weerarkooda si maskaxaysan uu diiradda ugu saaray meelaha ay ka diciifsan yihiin inuu ka bartilmaameedsado sida guddiga heer qaran ee xisbiga dimuqraadiga waxay qaadanaysaa shaqo yar in aad hesho hanaanka kombiyuutarada oo ay dib u helaan macluumaadka ololaha tan adag oo bartanka lagaga jiray iimaylo laga xaday kuwii ololaha u waday Hillary Clinton ayaa loo dusiyay dhammaan warbaahinta Donald Trump has released a new batch of another round of stolen emails. The Clinton campaign knows this could be a this latest leak, pretty much a Trump dream come true. Donald Trump waxa uu dhoosha uga qoslayaa nasiib darrada ku dhacday Hillary Clinton Ruushka haddii aad dhageysatay waxaan rajaynayaa in aad awoodo in aad wax ku ogaato 30,000 oo iimaylo ah oo maqan Donald J. Trump will become the 45th president of the United States defeating gabagabadii doorashadii Mareykanku waxay noqotay sidii Putin uu qorsheeyay waxaa hadda telefoon ii soo dirtay xogayaha Hillary Clinton Hillary Clinton wax badan ma aani sheegin ma aani ogeyn maskaxda dadka Mareykanka musharaxa kale Trump sida uu yidhi in uu rajaynayo isfahan marka ay dadku jecel yihiin anna waan jeclahay xataa Putin kuma ayaad ka heli lahayd tani maaha wixii ka soo baxay ee aynu doonaynay Hillary Clinton waxa la soo darsay mid ka mid ah qaraacankii guul darrada lagaga adkaaday ee taariikhda Mareykanka ogahay sida aad u niyad jabsan tihiin waa dareenteen maxaa yeelay anigu waan dareensanahay oo waan idinla qabaa sidoo kale ugu yaraan qayb ka mid ah kormeerayaasha ayaa sheegay inay jireen sababo shak lagu jabsaday tani way xanuun badan tahay waanay xanuun badnaan doontaa muddo dheer So help me God. Congratulations, Mr. President. 45th President of the United States. If
haddii Trump si uun ula yimaado tanaasul, haddii dowladda Ruushku si uun ay u dareemayso in ay lug ku lahayd inuu talada qabto, taasi waa arrin khatar ah. U malayn maayo in aan jawaab u helayo su'aalo kale, balse waa in aynu arrintaasi iskaga baxnaa.